بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين maanta oo ay taariikhdu tahay 7 bishii 7 2022 maalin khamiis ah waxaanu kulan warbaahineedkan annagoo ah madasha han mideeye aanu ku iftiiminaynaa mashruuc sharci oo curintiisa ay bilaabeen qaybo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland mashruuca sharci oo madmadow badani uu ka muuqdo isla markaana ay ka muuqato in an sifa aqoon badani ku jirto aan loo eegin mashruucaas oo magaciisa la yiraahdo curinta mashruucaas oo magaciisa la yiraahdo jideynta kabka horumarinta gobolada bari iyo nidaaminta cashuurta dawladda dhexe u qabato dawladaha hoose mashruucan sharci oo ah mashruuc sharci oo curintiisu cusub tahay isla markaana dabada ay ka riixayaan xildhibaano isku deegaan ah oo kale ujeedo iyaga u gaar ah taasoo sadbursi u sameynaysa deegaano gaar ah oo dalka kamid ah halka deegaano kalena ay curinta xeerkani si gaar ah u bartilmaameedsanayso haddaba waxaan doonaynaa dhowr qodob inaanu isdul taagno oo kamid ah curinta xeerkaas marka koobaad waxaan doonaynaa inaan ka hadalno qodobka 6aad ee curinta xeerka oo ka hadlaya jideynta kabka horumarinta gobolada bari qoondada horumarinta gobolada bari waxay ahaan jirtay 2% oo la siin jiray gobolada Sanaag Sool iyo degmada Bohoodle iminkase waxa laga dhigay 3% iyadoo lagu soo daray gobolka Togdheer si xeerku uu raali geliyo dhammaan dhinacyada mooshinka curinta xeerkaasi wata 3% qoondada horumarinta gobolada bari ee curinta xeerkani uu sheegay wuxuu ku dhacayaa dhammaan madaxyada miisaaniyadda kala duwan isla markaasna hoos u dhac kasta oo ku yimaada miisaaniyadda wax saameyn ah kuma yeelanayo qoondadan sida xeerka lagu sheegay qoondadani waxay u gaar tahay gobolada bari iyadoo ay jiraan deegaano badan oo galbeedka iyo koonfurta dalka ah oo uu ka muuqdo dib u dhac baahsani taasina waxay keenaysaa sadbursiye ee xasho buuxda oo ah wixii ay xildhibaanada mooshinkan wata ay sheegi jireen inay ka xaqsoori doonaan xeerku ama curinta xeerkani waxay keenaysaa sadbursi iyo kala doorasho deegaamada dalka iyadoo kuwana wax gaar ah loo qoondeeyay kuwana la ilaaway kuwana meeshaba laga saaray qodobka 10aad ee isla curinta xeerkani wuxuu ka hadlayaa dakhliga dawladaha hoose ay ka helaan dawladda dhexe qodobka 10aad faqradiisa koowaad waxa lagu waajibiyay dawladda dhexe cashuur 5% ah oo 5% cashuuraha kastamada 5% oo lagu celinayo dawladaha hoose dalka markii hore halka ay markii hore ka ahayd 10% isla qodobka 10aad faqradiisa labaad waxa lagu curiyay qoondo cusub oo ka timid 5% laga soo jaray 10% cashuuraha kastamada ee magaalooyinka Berbera iyo Gabiley oo lagu daray 2% miisaaniyadda guud ee ay hore u qaadan jireen isla markaasna noqotay 7% iyo badh miisaaniyadda guud ee qaranka qodobkani wuxuu u kala sadburinayaa degmooyinka kala duwan ee dalka isagoo tixgelin gaar ah siinaya degmooyinka darajada B oo u badan gobolada bariga laakiin ku xadgudbaya degmooyinka darajooyinka hoose sida C iyo D darajooyinka ah degmooyinka haysta qodobka 11aad wuxuu ka hadlayaa hanaanka qorsheynta dakhliga degmooyinka darajada ee dalka guud ahaan waa 7 degmo sida ku cad xeer lambar 23 2019 laba kamida degmooyinkaasi waa la takooray oo curintani way takoortay halka 5tii soo hadhayna saamiga boqolleyda ee ay ka helayaan miisaaniyadda guud ay tahay 17.5 oo ahayd miisaaniyadda guud ee 17.5 uu noqday 6% dhiganta in degmo waliba helayso
1.2 ee miisaaniyadda guud. halkaa waxaa ka muuqda in magaalooyinka qaar khaasatan magaalooyinka waaweyn oo ay Hargeysa ku jirtaa ay weyday lacag ay heli jirtay ama qoondada miisaaniyadda ay ka heli jirtay oo markii hore intaa ka badnayd. degmooyinka darajada B ee dalka waa 5 degmo sida ku cad xeer lambar 23/2019. saamiga boqolleyda ee ay ka helayaan miisaaniyadda guud ee 17.5 sida xeerku sheegay waa 100% degmadiiba. degmooyinka darajada C ee dalka waa 12 degmo sida ku cad xeer lambar 23/2019. saamiga boqolleyda ay ka helayaan miisaaniyadda guud waa 17.5 ee 17.5 iyana waa 0.36% oo iyana ka yar intii markii hore ay heli jireen. degmooyinka darajada D ee dalka oo ah kuwa tiro ahaan ugu badan sida ku cad xeer lambar 23/2019 oo tiradoodu ay gaadhayso 78 degmo saamiga boqolleyda ay ka helayaan miisaaniyadda 17.5 ee xeerkani sheegay waa 0.036%. degmooyinka haddaba sida kor ku xusan curinta xeerkani waxay simaysaa magaalooyinka Ceel Afweyn iyo Hargeysa oo la og yahay taasoo macquuliyadda ka fog lana og yahay inaan marnaba aanay kabka miisaaniyadda dawladda dhexe ay ka helayaan aanu isleegaan karin marka laga eego dhinacyada bulshada wax soo saarka ama dakhliga ay soo saaraan iyo wixii la mid ah. marka loo eego saamiga lacagta ay ka helayaan kabka guud ee dawladda dhexe siiso dawladaha hoose taasina waa wax macquuliyadda ka fog intii hore bay la socotaan. midda kale marka loo eego saamiga lacagta ay ka helayaan kabka guud ee dawladda dhexe siiso dawladaha hoose. midda kale degmooyinka darajada D haysta oo tiradoodu dhan tahay 78 degmo sida ku cad xeer lambar 23/2019 ayaa gebi ahaanba ka qatan kabka xeerkani uu jideeyay iyadoo ay degmo waliba ka heli doonto kabka guud qadar ah 0.03% sanadkii. lacagtaas oo shidaalka xafiiska maayarada degmooyinkaasi aan ku filnayn dakhliga dawladaha hoose ay ka helaan dawladda dhexe. qodobka 10aad faqradiisa labaad waxaa lagu curiyay qoondo cusub oo ka timid 5% laga soo jaray 10% cashuuraha kastamada ee magaalooyinka Berbera iyo Gabiley oo lagu daray 12% miisaaniyadda guud isla markaasna noqotay 17.5. xeerkani wuxuu degmooyinka bari u jideynayaa 3 shay oo kala ah qoondada 3% ee kabka horumarinta gobolada bari oo iyaga u gaar ah miisaaniyadda guud ee 17.5 oo ay degmooyinka kala siman yihiin iyo 5% ay ka helayaan kastamadooda. 3 faa'iido oo gobolada bari u gaar ah ayuu xeerku jideynaya. curinta xeerkani wuxuu caqabad ku yahay wax soo saarka dalka wuxuuna dhiirigelinayaa in dhaqaalaha dalku ku xidhnaado. xeerkani wuxuu si gaar ah u bartilmaameedsaday magaalooyinka Berbera iyo Gabiley oo dhibanayaal u noqday dakhligii ay soo saareen. waxaa si abaabulka xeerkan ka muuqata inuu yahay argoosi siyaasadeed oo daba socda doorashadii golaha wakiilada iyadoo shirgidoonka goluhu ay ka soo jeedaan gobolada bari. dhibaatada uu ku keenayo curintani dalka. curinta xeerkan cusubi dalkii wuxuu u kala qaybiyay bari iyo galbeed wuxuuna si toos ah uga hor imanaya wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliland isagoo u qaybinaya gobollo iyo beelo sida ka muuqata xildhibaanada keenay mooshinka ay ku curinayaan xeerkan iyo xildhibaanada ka baxay fadhigii golaha ee aan ka qayb gelin. curinta xeerkan cusubi waxay dhiirigelinaysaa in dhaqaalaha waddanku uu ku tiirsanaado dakhliga kastamada waxaanu jideynayaa in meesha kaliya ee dakhli laga heli karaa ay tahay kasta ama kastamada. kastamaduna waxaynu ognahay inay yihiin ilo dakhli oo aan joogto ahayn isla markaana aan la isku hadlayn karin. xeerkani wuxuu jideynayaa in la ciqaabo kastam kasta oo dakhligiisu sareeyo halkii laga abaal marin lahaa. xeerkani wuxuu daboolka saaraya ama qarinaya duruufaha ku gadaaman deegaamada kastamada leh iyadoo duruufuhu u kala badan yihiin sida kastamadu u kala weyn yihiin. duruufahaas oo ay ka mid yihiin kuwa deegaan bulsho caafimaad iyo amni oo aan ka jirin deegaamada aan kastamada lahayn. curinta xeerkani wuxuu keeni karaa isbahaysi xildhibaano iyo keenista mooshinno loogu adeegayo deegaano gaar ah. curintani dhibaatada gaarka ah ee uu ku hayo ama uu u leeyahay degmooyinka Berbera iyo Gabiley. curinta xeerkani wuxuu jideynayaa inay meesha ka baxdo xuquuq hor leh oo ay lahaayeen deegaamadani iyadoo ay jirtay xuquuqo hore oo kaga maqnaa qaranka oo ay ka mid yihiin saamiga mashaariicda horumarineed ee deegaanadaasi ay ku yeelan lahaayeen miisaaniyadda guud ee qaranka. curinta xeerkani waxa uu laba u qaybiyay
boqolkiiba 10 ay deegaanadani ka heli jireen kastamadooda isagoo qayb keli ah oo boqolkiiba 5 u soo reebay isla markaana ka cunaqabateeyay miisaaniyadaha kale ee qaranka oo dhan iyagoo labadan degmo ay soo saaraan in ka badan boqolkiiba 70 miisaaniyadda guud ee qaranka soo jeedinta madasha waxgaradka iyo aqoon-yahanka ee hanmideeya ay soo jeedinayso kadib markii ay wada tashiyo sharciyo kala duwan ay sameeyeen waxaan u soo jeedinaynaa xildhibaanada golaha wakiilada ee danaynaya jiritaanka iyo qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana oofinaya dhaarta ay u mareen dalka dadka iyo diinta inay ka hortagaan inuu sharciyoobo curinta mashruucan sharci ee deegaamaysan waxaan u soo jeedinaynaa xildhibaanada wada xeerkan qoqobka iyo qabyaaladu ka muuqato inay u soo noqdaan qarannimada iyo isku wadka ummadda waxaanu bulshada deegaanada la takooray ee Gabiley iyo Berbera u soo jeedinaynaa inay difaacdaan xuquuqdooda muwaadinimo iyo jiritaanka degmooyinkooda weerarka lagu yahay waxaan u soo jeedinaynaa bulshada deegaamada Berbera iyo Gabiley inay isku xidhan tahay helitaanka xuquuqda la rabo in lagu duudsiyo mashruucan sharci iyo xasaanada xildhibaanada gobolada bari ee mooshinka dibadda ka riixay waxaan ogeysiinaynaa hoggaanka xisbiga mucaaridka ee wadani inay xakameeyaan xoghayahooda guud oo si badheedha u taarget gareeya degmooyinka Berbera iyo Gabiley oo uu ku tilmaamay inay haystaan sadbursi iyaga u gaar ah waxaan ku baraarujinaynaa siyaasiyiinta xildhibaanada iyo cid kasta oo dibadda ka riixaysa curinta xeerkan in si dhow loola socdo isla markaana ay taariikhdu qori doonto cid kasta oo mashaariicdan noocan ah golaha keenta